Soomaalida madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo madaxweynaha Eritrea labadaba kor Allah ka dhigay waan gacan qaadnay waana soo dhaweynay madaxdii kale maxay ahayd la socotay wasiiradii iyo ambassador iyo saraakiisha la socotay waan soo dhaweynay waxaan ku soo dhaweynay cadadul quraan waxaan baryaynaa dalkanigoo nabada dawladdeena nabada tan oo nabadgelyo ah inaanu tan nabadgelyo kaga tagno taanagana nabad ugu tagno dad wanaagsan inaanu u tagno oo walaalahana 20 sano meelaha iyo waliba googobayaan joognay dalka Eritrea si fiican baan ugu noolaa waa la soo dhaweeyay waxa la siiyay wixii wax la siiyo wixii ugu qaalisanaa waxa ugu qaalisanaa waa maxay waa ciida waxaanu la midnahay dadka maxay Eritreanka ah haddii anagu maxay ahayday kasi xagga nabadgelyada kasi wanaagsaneen sababtoo ah qofka marka la yiraahdo waa Soomaali si fiican baa la noo soo dhaweeyaa waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxaanu helay anagu Soomaaliya iyo Eritrea wanaagii ka dhaxeeyay ama waxay Soomaaliya u qabatay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay hore ugu qabatay annaga ayaa dhaxalkeedii helay waxaanu ka helay dadweynaha Eritrea ta kale waxaanu aad iyo aad madaxda Soomaaliya gaar ahaan uga codsanaynaa safaaradda meesha loo keeno noo dhaxaysa annaga iyo dawladda Soomaaliya annaga iyo Eritrea noo dhaxaysa dalka markaad ka soo tagto baad ogaan qiimaha uu leeyahay waxa loo baahan dalka nabadiisa laga shaqeeyo dawladda la garab istaaga si sharaf leh dawladda loo garab istaaga wixii ay qaban karta lala qabta guul aan u rajaynaynaa dawladda Soomaaliya insha Allah shacabka Soomaaliyeed garbaha isqabsadeena dhibaato waa ka daalnay dhibaato nooma yar waan ka daalnay 30 sano dagaal wadankeenu uu ku jiraa insha Allah waan soo duceynaynaa annagana meel kasto joogna dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan waan colaad waana daashatay